Dhulka galbeedka Afrika waxaa ka bilaabmay gariir siyaasadeed, laakiin dhulgariirka dhabta ahi maanta waxa uu ka socdaa hoolalka shirarka ee Paris iyo weliba Washington. Faransiisku waxa uu ku jiraa xaalad argagax weyn ah, iyadoo isbahaysiga dowladaha saaxil ee la isku yiraahdo AES ay soo bandhigeen wax ay reer galbeedku ku duceysan jireen inaysan marnaba dhicin. Waa ciidan midaysan oo ka kooban 5,000 oo askari oo aqoon sare u leh dagaalka, diyaarna u ah inay u dhintaan dhulkooda iyo ciidooda. Kani ma ahan oo keliya howlgal ciidan, waa dagaal juqraafiyeed oo la doonayo in looga sifeeyo kuwii Afrika qarniyo badan ka qaadan jiray hantideeda. Xudunta duufaanadan isdaba rogaya ee ka socda qaaradda Afrika waxaa dhexda ka taagan Kabtan Ibrahim Traoré, madaxweynaha dowladda Burkina Faso oo aan isagu ahayn hogaamiye oo keliya, balse ah calaamadda nool ee madaxbannaanida dhabta ah ee qaaradda Afrika. Jiilal badan oo Afrikaan ah in ka badan 100 sano waxaa lagu maaweelin jiray in laga shaqeynayo horumarka qaaradda, balse tani waxaa iska cad inay beenowday ballanqaadyadii gargaarka beenta ahaa ee lagu maaweelin jiray dadka reer Afrika. Taariikhda Afrika waxaa dib u qorayay qalimaan shisheeye, kheyraadkeedana waxaa lagu xadayay magaca gargaarka been abuurka ah. Laakiin hadda waxaa muuqata wax walbaahi inay isu bedeleen isuna rogeen dhinaca kale, iyadoo ciidanka midaysan ee qaaradda Afrika u dagaalami doono gaar ahaan galbeedka Afrika ay qaadi doonaan tallaabooyin dhowr ah, taas oo meesha ka saari doonto fikraddii ahayd in dadka Afrika aysan fikirin ee loo fikiro. Maxay ka dhigan tahay 5,000 ee askari ee maanta diyaarka ah inay difaacaan galbeedka Afrika gaar ahaan saaxil? Muuqaalkan ayaynu ku faaqidi doonaa, balse marka hore channelka subscribe dheh oo ka mid noqo saaxiibada inagu xiran. Dadka falanqeeya arrimaha ciidanka ee fadhiya xafiisyada Paris amaba Washington, 5,000 oo askari waxay ula muuqan kartaa tiro yar, laakiin arrintu sidaa waa ay ka weyn tahay. Kuwaani ma ahan oo keliya askar caadi ah ayaa la yidhi, ee waa geesiyaal laga soo xulay cutubyada ugu adag ee kala duwan ee dowladaha Mali, Burkina Faso iyo weliba dalka Niger. Waana rag lagu soo abaabiyey dabka iyo colaadaha had iyo jeer ka aloosan gobolka saaxil muddo 10 sano ka badan. Ciidamo shisheeye ayaa sheegay in Afrika ay u joogeen la dagaalanka kooxaha xagjirka ah iyo sida ay nabad ugu soo dabaali lahaayeen dhibaatooyinka kala duwan ee ka taagan dalalka qaaradda. Laakiin rabshaduhu waa ay sii kordhayeen, mana jirin isbedello dhab ah oo laga dhaxlay joogitaankooda. Sababta ayaana lagu sheegay in ciidanka shisheeye aan marnaba loogu talagelin inay xalliyaan dhibaatooyinka masiiriga ah iyo waxyaabaha ka taagan ee nabadgelyo darrada ah ee dalalka ay u joogaan nabad ilaalinta, balse taa beddelkeeda waxaa loogu talagalay in ciidankani ay maareeyaan fowdada si gobolku uu ugu sii tiirsanaado badbaadadooda, isla markaana uusan marnaba uga maarmin mustaqbalka fog. Gaashaanka birta ah ee maanta ka hana qaaday qaaradda Afrika waxa uu soo afjarayaa ayaa la yidhi xuduudihii uu gumeystuhu sameeyey sanadkii 1884 shirkii lagu qabtay magaalada Berlin. Maanta haddii tuulo ka mid ah dalka Mali la weeraro, askarta ka timid dalka Niger iyo weliba Burkina Faso ma sugi doonaan baa la yidhi ogolaansho caalami ah amaba amarro aan waxtar lahayn oo ka yimaada qaramada midoobay, balse waxa ay si isku mid ah u qaadi doonaan dagaal midaysan. Waxa ayna ka gudbi doonaan xuduudaha isla markiiba si ay u difaacaan dhiigooda iyo weliba dhulkooda. Daraasado la sameeyey ayaa lagu ogaaday in askarta shisheeye ee 10 sano ku sugnaa dalalka qaar ee qaaradda Afrika ay dadka shacabka ku reebeen dhibaatooyin nafsi ah. Ka fikir ayaa la yidhi haweeney la yiraahdo Fatuma oo ku sugan magaalada Bamako ee dalka Mali. Muddo 10 sano ah waxa ay arkaysay gaadiidka gaashaaman ee ciidanka shisheeye oo ag maraya miiskeeda ganacsiga ay ku leedahay magaaladaasi, iyadoo weliba dadkeedu ay ku nool yihiin cabsi had iyo jeer ah. Laakiin maanta markay aragto ciidanka cusub ee midaysan ee qaaradda Afrika, ma arki doonto ciidan ajnabi ah, ee waxa ay aragtaa ayaa la yidhi wiilal ay eedo u tahay. Waxa ayna aragtaa deriskeeda, waxa ay u muuqdaan ciidan ku hadla afkeeda oo ixtiraamaya dhaqankeeda. Waana awoodda maskaxeed ee ay leeyihiin askartan, iyo in shacabka mar walba ay garab istaagaan askarta ka dhashay dhulkooda, kuwaas oo yaqaana ayaa la yidhi saxaraha iyo weliba hanfiga si ay ula dagaalamaan kooxaha xagjirka ah. Waa askar aan lagu soo iibsan lacag,
waxa ayna isku darayaan aqoontii hore ee badbaadada iyo tababarkii casriga ah ee ay soo qaateen. Paris waxa ay ku jirtaa xaalad weerar ah. Wararkii ugu dambeeyayna waxa ay sheegayaan inay ku mashquulsan yihiin sida ay suurtagal ku noqotay isdhexgalka ciidankan, kuwaas oo ay doonayaan inay u ogaadaan si degdeg ah iyada oo aan la ogaanin. Tanina waxa ay caddayn u tahay baa la yidhi isla weynida reer galbeedka oo ay u maleeyaan in Afrikaanka aysan awood u lahayn inay is-abaabulaan la'aantooda. Sidoo kale, khiyaanada ugu weyn ma ahan baa la yidhi mid ka timiday dowladaha shisheeye, ee waa mid ka timaada inta badan deriska, halkaas oo ay ku sugan yihiin sirdoon u shaqeeya reer galbeedka oo had iyo jeer u gudbiya xogaha degdega ah ee ka soo kordha Afrika. ECOWAS, ururkan oo loogu talagalay inuu mideeyo Afrika, waxa uu noqday qalab ay adeegsadaan Paris iyo weliba Washington si ay u cunaqabateeyaan una gaajiysiiyaan walaalahooda saaxil. Taas darteed hogaamiyayaasha ururka AES ee la magac baxay saaxil waxa ay qaateen go'aan geesinimo leh, waxa ayna ka baxeen ururka ECOWAS. Waan diidnay inaynu ixtiraam ka barino guri aynu inagu dhisnay. Maanta caasimadda Nairobi ee dalka Niger oo mar ahaan jirtay goobta ay ku kulmaan ciidamada Mareykanka iyo weliba Faransiiska, waxa ay isu beddeshay qalcadda iska caabinta ee Afrika, waana xarunta laga hagayo ciidamada midaysan ee uu hormuudka ka yahay General Dawda Traore. Tanina waa dhalashada duni dhinacyo badan leh. Afrika ma ahan ayaa la yidhi meel ay dalalka kale ku loolamaan, ee waa dagaalyahano madax adag oo mar walba difaacda dhulkooda. Haddiise mashruucan maanta ka hana qaaday galbeedka Afrika uu fashilmo, dadka siyaasadda falanqeeya waxa ay leeyihiin reer galbeedku waxa ay isku dayi doonaan inay tusaale xun uga dhigaan dalalka kale si aysan ugu dhiiran inay silsiladan oo kale ay qaataan. Sidaa darteed, guushu waa daruuri ayaa la yidhi. Gaashaanka birta ah ee ka curtay qaaradda Afrika ma ahan ciidan oo keli ah, ee waxa ay muujinayaan in maanta masiirka qaaradda Afrika lagu heli karo isku tashi iyo weliba in la midoobo. Waana bilowga xilli ay Afrika go'aansanayso isku tashi dhaqaale iyo in ay ka shaqeyso mustaqbalkeeda. Fadlan daawade, haddii aad halkan nala soo gaartay channelka subscribe dheh, isla markaana ka mid noqo saaxiibada inagu xiran. Waxaynu halkan ku soo gudbin doonaa sheekooyin iyo muuqaalo xiiso badan.